macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa kalsooni ku qaba in Kevin De Bruyne uu ku guuleysan doono inuu wajaho kooxda ay ku hardamayaan horyaalka Liverpool. ila wareedyo ay helayso Manchester City ayaa aaminsan ninka kamid ah xidiga ugu muhiimsan safka Pep uu boqolkiiba 80 saam u yahay inuu ciyaaro kulanka Khamiista Etihad. Kevin De Bruyne ayaa seegay kulankii City ay 3-1 kaga badisay Southampton axadii isagoo qabay dhaawac muruqa ah kadib markii la bedelay daqiiqadii 70aad dheeshii boxing day-ga ay la ciyaarayeen Leicester City. kubad sameeyaha ayaa ku sugan gurigiisa Manchester iyadoo lagu amray inuu nasto ciyaarta ay wajahayaan kooxda Chelsea Club. macallin Pep Guardiola ayaa si aad u doonayo Kevin De Bruyne kaasoo inta badan dhaawac ahaa xagaagan isagoo rajeynaya inuu ku garab dheelo David Silva iyo Fernandinho. ciyaarta ay City doonaysa inay soo gaabiso dhibcaha hoggaanka. Guardiola ayaa ku tilmaamay saddexda qadkiisa dhexe saddex xagalka dahabiga ah iyadoo taageerayaasha City ay rajeyn doonaan in Kevin De Bruyne uu diyaar u noqdo kulankan adag ee difaacayaasha. kadib markii Kevin De Bruyne uu maqnaa kaydka kulankii guusha ay ka soo gaareen Southampton, Guardiola ayaa laga yaabaa in uusan hubin haddii xidigan Belgian uu jeclaan lahaa inuu saam u noqdo kulanka Liverpool. Guardiola ayaa yiri waxa uu awoodi waayay inuu ciyaaro dhiisha Southampton, sidaa daraadeed waxaa jira xoogaa dhibaatooyin ah kama jawaabi karo haddii uu saam noqon doono kulanka Khamiista. waan arki doonaa.